ama tamaniyeysay inay arrintaa wax ka geysato bartaasay ku mahadsantay xilkaa annagaa ka qaadnay mas-uuliyadda annagaa qaadnay ku wareejin doono insha allahu tacaala caaqil rashiid jaambiir uu isaguna mas-uuliyaddii inantaa qaadi doono oo hareeraha ka jooga oo la fadhiya oo siday u qaabileen aad mooddo wafdi madaxweynihii hogaaminaya inuu gobolka joogo yacni naxariista iyo mas-uuliyadda saarnayd waxay iiga muuqatay gudaha alxamdulilah gabiley xalay markay soo gaadhay waad uga mahad celinaynaa ayaalna yare oo dhalinyarta magaalada ka mid oo saldhigga keenoo la kulmay taliyaha saldhigga iyo mas-uuliyiinta runtii degmada oo xalay gacantayada markay soo gashayba maadaama inan dhalinyara oo cawraa tahay waxaanu saldhigga runtii lama geynay halkan guriga martidaanu keenno lagu martigeliyey ilaa iminkana ay joogtaa oo ay naga soo gaadheen jiif caaqil rashiid iyo ehelkeedii waxaanu runtii halkan kula wadaagaynaa bulshada hudayar inay caafimaad qabto isla markaana halkan ku wareejin doono insha allahu tacaala caaqil rashiid jaambiir uu isaguna mas-uuliyaddii inantaa qaadi doono wixii culaysaa halkaa ka yimidna runtii uu de isagu jiif caaqilku dhabarka u ridan doono iyaduna ay caafimaad qabto waan u mahad celinaynaa cid kasta oo markii warkaasi soo qayliyey warkaasi soo baxay inantaa runtii de qayladhaanta iyo naxariista iyo gurmadkaba u fidisay hadday tahay hay-adaha kala duwan ee dowladda wasaaradda waxbarashada wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ciidanka nabadgelyada annagoo maamul ahaan runtii ilaa xalay nala joogtay waa waajib qaranuun unbaynu gudanaa cid kasta oo shakhsiyaad oo ka damqatay oo ka gurmatayna runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa wuxuun baan runtii jecel lahay inantaas waa inan yar oo dhalinyar ah oo mustaqbal leh aad iyo aad damiirkeeduna u wanaagsan yahay arrinteedana markaa noo warrameen ehelkii wuxuunbay ku tacalluqdaa family problem duruufo waaweyn oo dhaqaalo runtii qoyska ku xeersani ma jiraan intaana dee waxay nagaga filan jiif caaqilka isagaynu mas-uuliyadda ku wareejiyeynaa waxaa dheer intaa inaanu dadka ugu baaqanno in inantaa sawirkeeda iyo buunbuuninta runtii dee laga daayo oo waxaweye waa inan ardayada oo mustaqbal leh oo hiigsi leh duruufuhuna intaa iyo inka badan maalin walba way dhacayaan oo way jirayaan marka inaynu inantaa wejigeeda iyo mustaqbalkeedaba ilaalino oo ciddii wax la qabanaysa iyo ciddii waxa weeye dee jiifkii baa jooga oo mas-uuliyaddeeda gacanta ku haya qaab asturan xidhiirhkeeda iyo waraysigeeda iyo xogteeda ciddii doonaysa hase yeeshee aynaan muxuu ahaayey dee inantaa aynu magaceeda iyo wejigeeda iyo mustaqbalkeedaba inaynu ilaalino aad iyo aad baan runtii dhammaanteedu ku mahad celinaynaa aad baan ugu mahad celinaynaa waftigaa uu jiif caaqilku hogaaminayo abaskuul meel lama wada joogto warna iskuma seegana sidaa miidiyaha shalayta ka dhegaysateen arrintaa maanta halkaan u nimi waxay ka bilaabantay waayitaankii iyo hadalkii iyo fariintii ay baraha bulshada soo dhigtay hudi iyadoo oo cabasho ka muujinaysa nolosha arrintaasi waxaad dareemi karaysaan sababta keentay inay ama hadasho ama ay dhaqaaqdo oo keliya waxay ahayd wax aan cid ilaahay abuurtay oo keentay oo sabab u ahayd aanay jirin ay sababtu ahayd labada waalid ee hudi ay ka soo jeedo aabbiyi hooyo oo xanuun ilaahay keenay oo xagga dhimirka ahi uu la soo darsay muddo dheerna kala maqnaa oo kala tegey waa garan karaysaan gaabka ilma da'diisu intaa tahay ciddii isku xidhi lahayd xigtada markaa iyaga dhaafsiisanee u xigta iyo iyaga wixii la soo darsa ayaa gaabkeedii bannaanaaday intaasoo ku keliyaysatay ayaa broblemka iyo inay fakerto oy werwerto ku keentay waa qof sida uu maayarku sheegay intii ay xalay la joogtay oo waraysteen maskaxdeedii iyo caqligeedii iyo fikirkeedu ay ka muuqato inta aynigeedu uu yahay ay ka weyn tahay markaan maanta saaka meesha imi waxaan ugu yimid dambaan maamulka degmada gabiley oo uu maayarku hogaaminayo oo hareeraha ka jooga oo la fadhiya oo siday u qaabileen aad mooddo wafdi madaxweynihii hogaaminaya inuu gobolka joogo yacni naxariista
iyo mas-uuliyadda saarnayd waxay iiga muuqatay hadday xogeeyo dowlad hoose tay hadday guddoomiye ku-xigeenkii degmada tay hadday xildhibaanadii dhammaantood tay qof kamuu maqnayna waxay xaadir ku ahaayeen agteeda iyaga oo ka shaqaynayey dejinteeda iyo raaligelinteeda taliyaha biliiska degmada gabiley si gooniyaan isagana ugu mahadnaqaya dhammaan mas-uuliyiinta degmada ee duqa magaalada ugu horeeyo iyo degmada bilayskeedu waxay muujiyeen dareen aanan qiyaasi karayn oo tilmaamaya mas-uuliyadda hayaan inay fahamsan yihiin state house-kii magaalada ayaa sidii wafti martiya lagu soo dhoweeyey waa dhaqankii soomaalidu lahaan jirtay laakiin iyagu way baradheereeyeen maadaama guddoomiye degmadu uu igu soo wareejiyey mas-uuliyaddeedii ama marka hore mas-uuliyaddeedu anigay saarnayd iyo inta ilo midka ah ee iminka ila socota iyo qoys ahaan intay ka soo jeedeen aan anigu odayga wahayba wax alla wixii duruuf keentay sababta maanta aynu ka hadlayno ee tacliin lahayd ee waxbarasho lahayd ee nolol kale lahayd ee caafimaad lahayd siday u dhantay aniga iyo qoyska aan ka soo jeegay ka dhalatay ayaa damaanaddaa qaaday oo tuurta u riday cid kasta oo hollinaysay ama tamaniyaysay inay arrintaa wax ka geysato bartaasay ku mahadsantay xilkaa annagaa ka qaadnay mas-uuliyadda annagaa qaadnay cid kasta oo naxariis islaamnimo iyo walaalnimo iyo xigtanimo arrintaa inay wax uga geysato doonaysayna way ku mahadsantahay xilkaana annagaa ka qaadnay aad iyo aad iyo aad ayaan idinku mahad celinayaa